السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا ليال سوماليي قور ولبي قوب ولبا كما داري دون لهذا الكين إن شاء الله تبارك وتعالى. هل كان واحد كوسو قد بين دونا عمل كاس عدي سميسه maalinta qiyaamo marka hooska rabbi mooyaan hoos kale uu sajirin waxa uu ka mid noqon doonaa kuwa harsada hooskaas sida uu noo tilmaamay suubaneeni Muhammad nabadiina xariis dushiisa aatay sidoo kale nabigeena wuxuu yiri ku daweeya kuwiina xanuunsanayna ku daweeya ayuu yiri amalkaas ilaahi tabaaraka wa taala markuu uu tilmaamay muuminiinta iyo kuwa jannada ilaahi subhanahu wa taala doonayna waxa uu ku sifeeyay kuwa amalkaasi wax ka sameeya amalkaasi waxa uu leeyahay cimri dheeri adduunkana waa lagu liibaanaa آخرنا ولقول لي بأنا عد عمل كاسي سميس هذا عمل كاسي مقارنة يسا وصدقة وحربا إن الله بقي سوء قاقابا وصدقة لحريرته أيدي سوء قد بيو وحاد مقاشين مهما هذا صوماليات أما أوراه هذا صوماليات إيه ترادا صدقة ودفرتي هذا بس ده صدقة دو وحيابها إلا ده وحا كمي ده عمري ديري سبنك النبي سليمان عليه السلام أي النبي سليمان وحا لغو عزومة أو لغو عروس وحا لغو يري النبي سليمانو نغلا سو قيب قال أروس كاس النبي سليمان وحا سو تغسي وغا سو قيب قال أروس كاس انتو ودد دحا سو مري أيا وحا كوري من ملك الموت oo isku soo ekeysay suurad bin aadam waxa uu u sheegay inuu yahay malakul maut oo uu doonayo arooska uu u socdo ninka caruuska ee caawa aqal galaya inuu nafta ka soo qaado ajishiisa ay gooday nabi Suleymaan arintii buu ka murugooday wuxuuna niyadiisa weydiiyay maxaad ka tagaysaa arooskan murugada isku bedelaya oo iska laabtay oo gurigiisa ayuu ku dhaabtay nabi Suleymaan alayhi salaam intaas kadib subaxa ayuu doonay inuu cidii ka war doono bal xalay tacsidii iyo geeridii gashay nabi Suleymaan markuu goobta iyo gurigii yimid waxa albaabkii ka furay wiilkii aabihiis si wanaagsan oo faraxsan ayuu u salaamo u soo dhaweeyay waxa uu arkay in gurigii wax tacsi aan wax geeriyo uu ka dhicin nabi Suleymaan niyadiisa ayuu weydiiyay صوتي ملك الموت شلay kugu yiri caawaya nafta ka soo qaadaya caruuskina waa nool yahay cid waa faraxsanta waa cid aroos sidee wax u jiraan intaas markuu isu su'aalay ayaa markiiba waxa uu soo baxay malakul moot wuxuu yiri nabi Suleymaan ma waxa alla yaaban tahay shalay wixii aan ku sheegay oo aan rumoobin maantay ha ayuu yiri nabi Suleymaan waxa uu ku yiri caruuska aabihiis ayaa islaan masaakiin ah oo kaalmo weydiisatay siiyay sadaqo isla markaasna waa u duceysay waxay tiri ilaahow caruuski iyo caruusadaba cimrigooda dheeree ilaahay tabaaraka wa taala tii ayuu u aqbalay oo cimrigooda waa la dheereeyay sidii ayaana ajashi loogu dibdhigay ajiib halkaas waxaad ka arkaysaa sadaqo inay wad furato ama sadaqadu cimri dheeri inay leedahay sidoo kale nabigeena naxariis iyo nabadgelyo dushiisa aatay wuxuu yiri daawu mardaakum bisadaqa kuwiina xanuunsanay sadaqada ku daweeye qasadani waxay ka dhacday dalka Sacuudi Arabiya maama ayaa xanuunsanaysay labadeeda kiliyoodna waxay ahaayeen kuwa aan shaqeynaynin maalin kasta waa la meeri jiray labada kiliyood markii dambe ayay dooneen qoyskeedii inay kili u iibiyaan oo qof kale uga iibiyaan si ay ugu noolaato cid faqara gabadhooda ayaa codsaday inay ka iibsadaan kilida waxayna sheegeen inay sii doonaan lacag 300,000 oo riyaal ah sidii ayaa gabadhii lagu soo kaxeeyay subaxii markay eedin operation kala galo oo kaliyaha loo kala bedelo gabadhan iyo islaanta xanuunsanaysay ayay ooysay gabadhii habeenkii maamadii ayaa weydiisay maxaad la ooynaysaa gabar yahay waxa ay ku tiri waxaan la ooynayaa baahida cidayda haysa oo sababtay inay kalideeda iibsadaan hooyadii ayaa calool xumooto ka qiirootay isla markaasna waxay u yeertay wiilkeedii oo waxay ku tiri wiilkaygiiyo ii keen lacagtii wiilka ayaa ku yiri hooyo markii amaliyada la galo ama labada kaliyood leedin kala bedelo markaas ayaa lacagta la siinayaa may hadda ii keen bay ku tiri wana uu keenay lacagta ay gabadhi farta ka saartay waxayna ku tiri gabar yahay waatan lacagta aan ku heshiinay kalidaadana ma doonay kalidaadana hayso lacagta tan qaado gabadhii ooyintii murugada la ilmeenaysay durba farxad ayay la ilmeysay lacagta ayay qaadatay qoyskeeda ayayna kula laabatay subaxii ayay wacday dhakhtarkii waxayna ku tiri saaka operationka ama shaqadii loo baahnaa qaliinka ah waa baaqday ayay ku tiri maamadii xanuunsanaysay laakiin ii kaalay waxaan doonayaa sida caadada ahayd inaad kaliyaha ii dhaqdo ii sifayso dhakhtarkii markuu yimid gurigii waxa uu la kulmay arrin cajiib ah markuu u baaray islaantii waxa uu arkay labadeeda kaliyood bay inay shaqeynayaan inay yihiin sidii markii horeete loogu talagalay inay u shaqeynayaan cajiib kolkii uu weydiiyeyna waxay u sheegtay inaysan wax dawaa ama wax umuuro kale aysan sameeynin ilaa qaliinka ay u joojisay cidii ay la gashay heshiiska inay kaliya kala bedeshaan in lacagta ku sadaqeysatay iskagana tanaasushay kilidii ay kala bixisay haddaba walaalayaal halkaas waxaad ka arkaysaan sadaqadu inay leedahay umuuro cajiib ah oo dhan walba ah
aakhirana intaas in ka sii badan uu ka faa'iideeyay saaxiibkeeda wax sadaqaysta haddaba walaalayaal ku dadaala sadaqada ayada ayaa adduun iyo aakhiraba idin fura doontee siina faafi muuqaalkan waadna ku mahadsan tahay daawashadaada